magaalada Boorame caasimada gobolka Awdal ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargalowga munaasabadda Ciidul Fidrida oo fooday lagu soo hayso oo ay ka dhiman yihiin maalmo kooban. haddaba waxaa jira in suuqyada halbowlaha oo magaalada Boorame inay habeenkii yihiin kuwa aad iyo aad u mashquula iyadoo waliba ay waalidiintu doonayaan inay caruurtooda u iibiyaan dharka ciidda si ay ugu farxaan maalinta ciidda iyadoo waliba ay xusid mudan tahay in maalintii la sooman yahay ayaa haddana suuqu maalintii aanusan waxba ka laadlaadin ama san waxba ka dhicin habeenkii waa kuwan haddaba qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boorame ee ka ganacsada dharka iyo alaabaha kala duwan ee ciidda oo ka warbixinaya sida ay ciidda iyo ganacsigoodu u socdo. bismillaahi raxmaani raxiim hada suuqa aad baa aad iyo aad u ballaaran suuq aad iyo aad u qurux badan bay u diyaargaroobeen ciidan Ramadaan ku soo barakeysan maalmahan ugu mashquulka badanahay wadiga arkaya saxruuda suuqa iyo shaqada sida ay u socoto maalmo wanaagsan si fiican bana lagu diyaargaroobayaa way aad u tahay dadku si fiican bay u cunsadeen alaabooyinka wax kasta yaryarkii waaweynki wax waliba ilaa iyo dadkii waaweynaa oo qaadayaan qofkii qaraamo dadkii macalbaadiga jooga cid waliba si fiican bay u iibsanayaan waxaan ku wadaa ciidda ka fiican tahay hore maxaa yeelay ana caruurta markii ay wataan waxay iibsanayaan kacabkii suuqaladii ayniyo hoos loogu dhigay carwo kasta waxay muddaynayaan meel fiican marayso runtii waxay kala duwan yihiin mar kasta laga ciidas dhaafaan dib u bilaashka soo korna runtii waxa yimaada dadku ciidii hore sidii ciidamaha si ka duwan u ciidan dad cusub ay yimaada waxa kaloo dadna way soo kordhayaan dhalayaan isku soo wada duubayaduna waxaa xusid mudan in suuqa lagu kala iibsado cunooyinka kala duwan ee wadaniga uu yahay mid mashquula taasi oo ay dadku u wada iibsanayaan sida iskaga bixin laayeen Zakaatul Fidrida geesta kale iyaduna waxaa mashquul galay gabi ahaanba goobaha lagu xirto ama lagu jarto timaha ayaa waxay galeen mashquul taasi oo ay sabab u tahay munaasabadda Ciidul Fidrida oo la isku sii qurxinayo awgeed. Hussein Atiye Jama Hussein Gaafane golaha falanqaynta iyo siyaasadda ee 19 Boorame.